السلام عليكم. maalin kasta waxayna soo food saaraa xaalad nololeed oo kala duwan oo u baahan in aan wax kala doorano. qaar ka mid ah doorashooyinkan waa ay sahlan yihiin, mararka qaarkoodna way adkaan karaan marka laga eego hadba marxaladda aad ku sugan tahay. go'aan qaadashada wanaagsan waa hab in la barto ku habboon, ma ahan wax aynu si dhab ah ugu dhalanay, balse waa hannaan tallaabo ah oo inta badan laga dhaxlo waayo aragnimada nolosha iyo marxaladihii ku soo maray. dadka waaweyn inta badan waxay og yihiin in waayo aragnimadu ay noqon karto macalinka ugu wanaagsan ee noloshaada ku soo mara. waxaa jira caadooyin xunxun oo inta badan saameyn weyn ku yeelata go'aan kasta aad qaadato. waxaan jeclahay inaan halkan idinku soo gudbiyo 5 qodob oo ka caawin kara qaadashada go'aan wax ku ool ah oo aad ku gaarto yoolkaaga. qodobka koowaad, aqoonso hadafkaaga. mid ka mid ah xeeladaha ugu wanaagsan ee go'aan qaadashada uguna waxtarka badan waa inaad isha ku hayso yoolkaaga. tani waxay si fudud kaaga caawinaysaa in aad aqoonsato ujeedada go'aankaaga adiga oo isweydiinaya waa maxay dhibaatada u baahan in la xaliyo, maxayse tahay dhibaatadan waxa u baahan in lagu xaliyo. ogaanshaha waxa adiga ku muhiimsan iyo waxa aan muhiimka ku ahayn ayaa kaa caawin doona in aad samayso go'aamo wanaagsan. markaad ogaato sababta aad u qaadatay go'aan gaar ah, waxaa si fiican kugu caddaan doona in aad daa'into go'aankaaga oo aad ilaashato masiirka yoolkaaga. qodobka labaad, aruuri macluumaadka miisaanka leh. marka la sameynayo go'aamo wanaagsan, waxaa fiican in la aruuriyo macluumaadka lagamarmaanka ah ee si toos ah ula xiriirta xaaladaha markaasi taagan. tani waxay ka caawin doontaa in aad si fiican u fahamto waxaa loo baahan yahay in la sameeyo oo ah xal waara. sidoo kale waxaa ka caawin doontaa in aad abuurto fikrado hal abuur oo suurtagal ah iyo in aad ku guulaysato go'aamadaada oo dhan ee mustaqbalkaaga. had iyo jeer raadso fikradaha dadka aad ku kalsoon tahay ee aqoonta leh iyo dadka waayeelka ah ee kugu dhow mar waliba, sababtoo ah dadkaasi waxay ka caawin doonaan in aad la timaado xalal kala duwan oo miisaan leh. sidoo kale go'aanka ugu dambeeya, waxaad u baahan doontaa inaad aruuriso inta ugu badan ee warbixino muhiim u ah oo ku aadan waxaad arabtid in aad go'aan sax ah ka qaadato, si aad u gaarto go'aankaaga ugu fiican uguna dambeeya ee guulaysta oo aadan ka shalaynin ama aadan ka walwalin inta aad hadafkaaga saxda ah ka gaarayso. tusaale ahaan, inaad tiraahdo sidaan maxaan u qaatay iyo maxaan qaldanaa maalinkii aan go'aankan qaadanayo. intaan ayaa kusoo koobaya. la soco qaybta labaad. mahadsanid.